mas-uuliyiinta xafiiska komishinka booliska ee ku qoran waaxaa dambi ka hortaga maamulka baadhista ayaa kulan lagaga hadlayay sidii loo xoojin lahaa arrimaha nabadgelyada iyo shaqada baadhista saldhigga booliska kula qaatay ciidamada booliska ee dambi ka hortaga baadhista ee maamulka magaalada Jigjiga. kulankan oo ay si wadajir u hogaaminayeen komishineer ku-xigeenada komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaalida ugu horeeyo Major General Sakariya Cabdi Khaliif Ridaad komishineer Cali Cabdi Jabbaar iyo gaashaale sare Xasan Mooge oo ay ku helinayaan madaxa baadhista cabashooyinka iyo ogista dacwadaha General Cabdinaasir Maxamed Daahir taliyaha booliska maamulka magaalada Jigjiga gaashaale sare Cabdiraxmaan Maxamed. mas-uuliyiintan oo halkaasi kula hadlay ciidamada booliska ee ku qoran dambi ka hortaga baadhista maamulka magaalada Jigjiga ayaa ugu baaqay xubnahan inay xoojiyaan qof kasta oo waajibaad uu ka saaran yahay amniga haday tahay baadhista iyo dambi ka hortaga in la xoojiyo idinkoo ilaalinaya sareynta sharciga ilaalinta xuquuqda aadamaha ilaalinta anshaxa ciidanimo shacabkana ugu adeega si cadaalad ay ku dheehan tahay isla markaana ay tahay muhiim in la ilaaliyo sharafta iyo karaamada uu leeyahay boolisku. marka shacabkeena u shaqeyno cid kasta meesha loogu talagalay ka shaqeyso isla xisaabta shaqo وين السميسان أنا جوا اللي حسيت ويننا وحنبهنا هاي ضد كماشة اللي كينيو وضد بالآدمة وضد حويان وبهن طريال يحوق غير اللي عليه وحلو بهاي روح كستا إلا قبت معه روحه أنت اللي كينين مركل إذا كيني يديك كبت اللي كينيو وين أبقى على الأرض روحه مركل أبقى على الأرض إنه الدم دقاق قبو بالك بالحريص ما idinku ma qaban kartaan ruuxan dambigiisi ADC oo cad aan wadan ruuxa marka la idin keenayo waa in sharcigi ADC oo dhameystiran u wato la dhaqanka bil aadamka waa inaan adkayno shaqada waxa loo baahan yahay in la wanaajiyo waxayna ku xiran tahay qofka baaraha ah oo kiiska gacanta ku hayo ama se eedaas gacanta ku hayo maxbista waxa loo baahan yahay marka in yaani sareynta sharciga la hirgeliyo ayaa loo keenaa